من يا ترى قد جاء مشكاة القلوب وأتانا بالوحي الكريم زرع المحبة بالدروب وتوسم الخلق العظيم من يا ترى رفع العدالة بالصروح رسم الفضيلة بالحياة بالخير والبشرى يبوح والمجد أضحى في ثبات في هديه طيب الأثر يزدان فينا كل حين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كسو دوادا داوة ديال مركلة يبرنامج كيني لقن دور لبا وينو كغور رمني آداب تطبانك كور رمسا أخلاقياتك وسيقود آداب يا أخلاقياتك ديلغا أما مالين لها يا قفك مسلم كان نرشيس maalintii inta ugu badan uu la kulmayo ama uu arkayo aadaabtii saddexaad ay tani noqonaysaa si kala hadaynu eegnana waxay noqonaysaa xalqadii afraad marka laga yimaado tii hordhaca saddex xalqadood ta saddexaad aynu maanta qaadanayna waa aadaabu al-akli wash-shurb aadaabta ay leedahay cabitaanka iyo cunitaanka qofka muslimka ama si guud qof kastoo nool ah wuxuu u baahan yahay wuxuu ku noolaado ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay cunitaanka iyo cabitaanka ama cuntada iyo cabitaanka inaynu ku noolaan isagoo ilaahay nimcada ina siiyey ayaa haddana wuxuu inoo jideeyey aadaab la rabo qofka muslimka inuu ilaaliyo aadaab la rabo qofka muslimkaahi inuu dhaqan geliyo oo kaga duwanaado dadka gaalada ah oo kaga duwanaado xayawaanka oo kaga duwanaado makhluuqaadka kale oo dhan أدبكن أما أدابتن وآداب الأكل والشرب وحشيخ يري حفظه الله تعالى سمي الله مركو قول رئيس إلهي سبحانه وتعالى حس في ابتداء أكلك وشربك مركات بلا بسيط عنيتانك يعبتانك بسم الله كبلو أذيك قوله بسم الله وكل بيمينك قعنت هذا ميدي كعن وكعب وكل مما يليك ماشي كسوحك تنكعن فإذا فرغت marka aad dhamayso cuntadii falcaq asaabicak farahaagana ka murdiso ka leefleef waqul kadib waxaad tiraahdaa markaad cuntada dhamayso alxamdulilah ilaahay subxaanahu wa tacaala umahadnaq lix qodob baa soo hosgelaya aadaabkan bal qodobka koobaad aynu ku bilowno wax barnaamijka ila mushaarakeynaya walaalkeen sheekh iimaan oo isagana aan kusoo dhaweyn doono qodobada dambe qodobka koobaad wuxuu yahay حسك إلهي سبحانه وتعالى الحصيو في ابتداء أكلنا وشربنا مركا إنه بلابنو عنيتانك يا عبيتانك مركا إنه عنتظر بلابنو أما عبيتانك بلابنو إن إلهي سبحانه وتعالى حسن الابتداء وإنه قدك دقو والمبادرة بقول إنه قدك دقو له بسم الله قفك مركو عنيو وح أما مركو عبيو مركا إن قفك markuu cuntada bilaabayo ilaahay subxaanahu wa tacaala xuso oo magaca ilaahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xuso isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala u kaashanaya u kalmaysanaya ku bilaabay magaca ilaahay ka barakaysanay magaca ilaahay inuu cuntadii ku bilaabo idan waa qodob muhiima marka doonaysid inaad cuntadii bilowdo inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xusto aad ku dhawaaqdo magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala bal masalada labaad waxaan kusoo dhaweynaya walaalkeen sheekh iimaan فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أدبد مع صنته ولا الحمسي شيخ حمسي الله بركايو سيدو وناكسن قروح بضن له وقع هذا الشيء مسألة كوات مسألة الله بعض وحين قنيسا وكل مما يليك قفك إنه marka uu bismillaah ku bilaabo sidoo xamsa u sheegay walaalkay si wanaagsan oo fiican ay u sharxay masalada labaad waxay noqonaysaa inuu qofku cuno yani ama uu ku cuno meesha inta hortiisa taala cuntada marka la soo dhigo
waxa wanaagsan oo sunno ah oo dhaqan fiican tahay qofka muslimkaana loo baahay in laga helo mar kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta inta hortiisa taala in uu cuno sidaana waxa sheegaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiska uu Anas bin Malik ka warin saxiixaynka ku qoran يا غلام سم الله وكل بيمينك وكن مما يليك يعني معنوه waxa weeyaan gacantaada midigta ku bilow bisinka ku bilow marka koowaad gacantaada midigta ku cun waxa hortaada yaalana mas'alada labaad waxay noqonaysaa waxa gacantaada midig inaad ku cunto bay noqonaysaa in sha Allah ta'ala waxa uu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam asigoo la hadlaya wiilka yar oo ku leeyahay markaad cuntada cunayso bisinka ku bilow marka xigtana midigtaada ku bilow midigta ku cun marka waxa wanaagsan oo fiican oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka sugan qofka inuu midigta wax ku cuno una cuno waxa hortiisa yaala sidaasaana fiican oo qurux badan inuu meelaha kale cuntada una maaragtay ka soo qaadan culimadu waxay ka soo reebaan marka kaliya cuntadu haday kala duwan tahay متنوع هدي تهاي وكله وحا بنان وعادي قفكو soo qaadan kara waxa kale halka yaala oo kale laakiin haday cuntadu isku mid tahay culimadu waxay leeyihiin waxa wanaagsan oo qurux badan oo tahay akhlaaqda muslimka in laga helo waxa hortiisa yaalo qofka inuu ka cuno sidaasana qurux badan sidaasana nafteedina fiinaba ku boorinaya in markaste laga arko cuntadeena istaageena socodkeena soo galitaanka dhammaan nolosha dhan sida walaalkay sheegay daily life ka ama maalinta iyo maalinlaha dhaqankii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaan rajeynaya ilaahay inuu nawaafajiyo noo fududeeyo walaal xamsa ku soo dhaw barakallahu ma sha Allah jazakallahu khair waxaan in yar ka daba tagi qadiyadii ku saabsaneed bismillah magaca ilaahay subhanahu wa ta'ala kow qofku markuu bilaabayo inuu magaca ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bilaabo bismillah yiraahdo laba inaan waxba ka kordhin ama aan ku ziyaadin oo oran bismillaahir rahmaanir rahiim sababta sida waaridka ee soo aroortay waa inuu qofku ku koobnaado ama uu ku gaabsado oo kaliya bismillaah laba xaaladood baa dhaca marka qofku cuntada uu cunayo xaalad waa tan aynu sheegnay labada xaaladood kale waxay yihiin qofku isagoo cuntadii ku dhex jiro bisi ku ilooba wuxuu xasuustay isagoo cuntadii ku dhex jira waxa la inoo suneeyay inuu qofku la yimaado xaaladda ayada ah حسك إلهي سبحانه وتعالى يا مقع إلهي أو هذا بسم الله في أوله وآخره مقع إلهي بانكو بلا بيا هو الرئيسية الدنبيسة أما مركو قوة الرئيسة ومركو قوة الدنبيسة حالة دلوات وحالة قفك انتو عنتدي بلا بي بيسنكيبو إلو بي عنتدي لما يستي يدنا محالة قربا وحالة وحو الله من يقفك اللهم السنين أما الله إنما شرعيين لبدا حالة دوت ومهم قفك مسلم كينو كبرى ركسنادو bisinkuna aad iyo aad bay muhiim ugu yahay oo axaadiis aad iyo aad u fara badan baa ku soo aroortay inuu qofku bisinka qabsado haddii uu qabsadana inuu shaydaankii gaajaysiinayo haddii uu bisinka ilaabana inuu shaydaankii dharginayo marka bisinku aad bay muhiim yihiin qodobka saddexaad oo ah al-akl bil-yamiin والشرب باليمين in midigta lagu cuno midigta lagu cabo adila aad iyo aad u fara badan baa ku soo aroortay waxaanay ka mid tahay aadaabta muhiimka oo ah cuntada marka la cunayo al-akl bil-yamin illa rasuulku gaarsiiyay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi markuu inoo diidayay wuxuu nagu yiri ha ku cunina oo ha ku cabina bidixdiina maxaa yeelay shaydaanka ayaa waxna ku cuna waxna ku caba la taakulu bishimali ولا تشربوه فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال marka dhinac waxay noqonaysaa at-tashabbuh بالشيطان inuu qofku bidixdii wax ku cuno waxna ku cabo dhinac kale waxay noqonaysaa amarka rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo laga hor yimid oo qofkii uu khilaafay arintaasina khatarteeda leedahay ila rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu gaarsiiyay saxaabiga agtiisa wax ku cunay ee uu ku yiri kul bi yaminik ee uu yiri la istata'at رسول ما استطعت رسولك قال له ما أودي ده رسولك واحد وري لا استطعت هبا أودي ده توحي إليه صحابة الرسول رضوان الله عليهم مركب عنتذا قاتي أنتي أفكيس أوسي ودي أنتي وده حيسي بإلهي سبحانه وتعالى شلل وكل ذيك عنتيسي ويقل شيء مركب الأكل باليمين أبي مهمية وأنا على مدى التلمامية قفك مسلم كا الطريقي هدي رسولك صلى الله عليه وسلم قاتي
waxyaabaha aynu kaga duwannahay dadka juhasha dadka aan ihtimaamka siin sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam dadka ka khashaafa ama ka khajila in lagu garto ama loo arko ama loo fahmo ama la yiraahdo waa dad ku dayanaya dariiqi rasuulka sallallahu alayhi wasallam qadiyadaynu ku soo gabagabeeyana waxay tahay badiyaa waxa dhacda marka casuumadaha ama meelaha dadku sida jamaaciga ay wax wada cunayaan la isugu yimaado ama si guud hadaynu dhaahno markaynu caadi wax cunano ayaa qofka wax laga yaabaa inuu midigtiina wax ku cuno bidixdiina wax ku cabo walillahi alhamd imka waa la soo fahmaya deeta qofka markaad ku tiraahdo walaal wadiga midigtaba ku cunaye bidixdiina ku cab ayaa wuxuu oranayaa koobkiiba isku goobay wali miyaad isweydiisay walaalkayga bidixda wali ku cabo markaad koobka afkii aad cuntada gelisay ee ay cuntadu kaaga taataalay aad koobkii ku cabtay ma filasaa in iyadoon la meerin koobkii dib loogu cunayo loogu cabayo la waxay afkaagiiba marmarinaya dufankii ama hadhaagii cuntada marka marleyba koobka waa la meedhayaa waxaad ku dadaashaa raacitaanka iyo qaadashada sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkeen sheekh Iimaan falyatafadal aad iyo aad baad mahadsan tahay waa mas'alo muhiima inuu qofku markasta ku daydo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cuntadiisa sidaan hore usoo sheegnay iyo dhammaan nolol maalmeedkiisa masalada shanaad ee soo raacaysa waxa weeyaan wayda faraqta falq asaabicaka yani waxa weeyaan qofku markuu cuntada dhameeyo ama hadduu ku cunayo mulqaacad ama hadduu fariisa ku cunayo gacantiisa waxa wanaagsan markuu cuntada dhameeyo inuu maaragtay cuntada ku hadhay gacmihiisa inuu la ilaaho mudmudsado si waxa dhici karta bay leeyihiin culimadu waxa dhici karta barakada cuntada laga raadinayay nafciga inay gacantaada ku hadhaa suurtagala marka waxa wanaagsan nabi maxamedna ka sugan sallallahu alayhi wasallam sunnihiisu ay tahay in uu gacantiisa mudmudsan jiray ama uu ciyaalkiisa oo kale ama xaasaskiisa oo qof raali ka oo kale inuu faraha u mudmudsan jiray waa sunnah nabiga calayhi salaatu wasalaam si cuntadii aanad u meedhin ama aad u masixin iyadoo wali kugu taala ama gacantaada ay ku taalo marka adabkaasi waa adabka marka cuntada uu qofku dhameeyo ku soo gabagaboobaya ee wanaagsan ee loo baahan yahay qofka muslimka in laga helo aanan uga duwanahay dadkan kale gaalada ah ilaahayna nagu sharfay anaga islaamnimada iyo muslimnimada iyo dhaqanka wanaagsan inuu ka dhaxalnay rasuulkii sallallahu alayhi wasallam marka waxa loo baahan yahay qofka muslimka marka cuntadiisa uu dhameeyo ama hadduu ku cunayo mulqaacad ama waxyaabaha wax lagu cuno aanan gacanta ahayn inuu xataa laftirkooga sheekha musanif wuxuu leeyahay xafidahu allahu tacaala sheekh saalix inuu xataa lafbaalaha uu mudmudsadaa aad bay u fiicanta waxaa dhici kartaba sababta barakada ku jirta inay tahay marka laga tago faraha haddii uu qofka ku cuno ama gacmahana waxaa fiican inuu mudmudsado waxaan odhan lahaa khitaamka insha allahu tacala sheekhaa soo xidhi doona sheekh xamse tashabahuu bilkiraami fain lam takunuu milahum ina atashabuha bilkiraami falaaxu dadkii wanaagsanaa naga horeeyey asxaabtii iyo rasuulkii khayrka iyo wanaagga ilaahay ku ammaanay ilaahayna raali ka noqday aan isku ekeysiino mar kasta iyo meel kaste kuwa in la isku ekeysiiyaa guul iyo waxay ku jirtaa farxad inaynu aakhiriya adduunba guulaysano insha allahu tacaala walaalkii xamse ee ku soo dhaweynaya sheekh xamse allah barakeeyo جزاك الله خير شيخ إيمان آدي آد بمهتسن يحي قضب كي قدام بيبين كسو قبيننا إلهي سبحانه وتعالى حكوار ساقي إن هذا عنته الشكو إن العافمات كانت كعوني لهي آتي الشاء الله إن هذا عنته دي عنته صدح وحكوها فتشي إن هذا بسكي وقبطه أفر وحكوها فتشي إن هذا قعنتي بذيك أتكو عنته وحكوها فتشي إن هذا حقي كسو حكتك عنته لنعك لبا قبحه وحكوها فتشي إن هذا مدموتسته oo cuntadii ka dhamayso farahaaga ama mulqaadad ku cunsi ugu dambeyn miyaanay mudnayn Allahi intaas nimco ku siiyay inaad u mahadnaqdo ma way mudan tahay wax markan kale inoo suneeyay oo inoo sharciyay qofku markuu cuntada dhameeyo inuu yiraahdo alxamdulillah ilaahi subhanahu wa ta'ala u mahadnaqo waa markaad cuntada dhamayso inaad ilaahi subhanahu wa ta'ala u mahadnaqdo waxa kaaga filan kelmadaasi alxamdulillah haddii aad ka kordhisana adkaar kale iyo adciye kale ayaa soo aroortay oo fadli farabadan iyo dibila farabadan aad ku helaysa oo ay kamid tahay alxamdulillahi alladhi at'amani wa razaqani min ghayri hawli minni wala quwwa idan waxaan isku boorinana nimcooyin farabadan buu ilaahay na siiyay marka aynu bilaabanana ilaahayna xusno marka aynu dhameynana ilaahay subhanahu wa ta'ala
aynu u mahadnaqno inahaas baynu kusoo gabagabaynaynaa qodobkaas ama aadaabta ku saabsanayd aadaabu akli washurb aadaabta cunitaanka iyo cabitaanka oynu ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynayno inuu ina waafajiyo wixii inaga dhiman inta aan aqoon u lahayna inay sabab u noqoto xalqadan aynu duubanaa inay bartaan oo aan aqoon u yeeshaan wixii inaga dhiman aadaabtaana inay inoo kabto oo inoo dhammaystirto wallahu subxaanahu watacaala aclam waxkam wabillahi towfiiq subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk من يا ترى قد جاء مشكاة القلوب وأتانا بالوحي الكريم زرع المحبة بالدروب وتوسم الخلق العظيم من يا ترى رفع العدالة بالصروح رسم الفضيلة بالحياة بالخير والبشرى يبوح والمجد أضحى في ثبات في هديه طيب الأثر يزدان فينا كل